السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر الوضع سيدا كتمية كورس كي تحنا هاي نكبرني programming language كله يقانو دارت كانوا chapter كني لبعض أمام مجوال 2 10 كيس ستحاد ونكبرن دون وحلا يقانا string manipulation وحنسيقوني ودول استاجدونا وحلا يقانا تجستيجا أما stringa data type كاسو نيجدونا وحويان option دي سكلتون هتي تهاي وحويان قاب كله سكو حلا يو هتي تهاي properties كوجوني دولية هاي marka la joogo dart ugu horeyn waxaan tagayaa marka Visual Studio Code keeni casharkeeni hore oo inoo soo soconay marka fadlan waxa muhiim ah in casharadii ka horeeyay waxa weeyaan aad soo daawato markasta waxaan tagi doonaa marka folderkaygii hore waxa marka chapterkan ama module 2 oo in ku baranay basic waxa inoo sameysnaa laba cashar oo variable data type kan ku soo waranay iyo type conversions wax loo yaqaano marka casharkeena saddexaad saan marka u sameeyno waxa leenahay right click markasta waa in organize kareena string marka string manipulation qoraalkood qori karaysa laakiin iska soo gaabsanayna dadna waxa leeyahay marka 03_string.dart casharkan marka waxaan dul istaagi doonaa si official ah waxa loo yaqaan string ama data type loo yaqaan string properties kiisa iyo waxa loo yaqaano habka la isku xidhayo ugu horreyn markasta koodkeena wuxuu ka bilaabmayaa waa void main oo abarta laga soo galo luqadda loo yaqaan dart ama entry ga waxa weeyaan laga soo galayo waayahay ugu horreyn marka waxaan qorayaa string hadda markaad qorayso waxa loo qoraa laba option hore soo aragnay wax loo yaqaan single quotation aad qorto iyo double quotation aad qorto tusaalahan imka markaan qorayo waxa leeyahay marka single quotes ka markaan qorayo mesela waxaan qorayaa marka string deedna waxa leeyahay mesela tusaalahan qof baan doonayaa marka inaan qoro name kiisa marka name 1 qoraalka 1 number ka dambaysiin karaysaa hadaba baad laakiin kama horeysin karaysaa sida aynu ku soo barnay variable-ka marka tusaalahan waxa leeyahay imka single quotation man qorayaa deedna waa hal single ama waxa weeyaan oo quote kaliya tan qoray deedna waxa leeyahay marka Abdirahman deedna marka waxaan ku dambaysiinaya waxa weeyaan semicolon qaabkaas waa qaabka koobaad ee waxa weeyaan loo qoro qaabka labaad ee loo qoro waxa loo yaqaan marka waa double quotes ba loo yaqaan marka waa isku mid kii aad doontad qoran karaysaa laakiin name tu tusaalahan hadaan idhaahdo deedna double quotation qoro deedna tusaalahan waxa leeyahay ayaan deedna semicolon marka labada nooc waxa weeyaan laba nooc qori karayso waxa iyadana xusid mudan muhiim ah hadaan u baahanahay qoraal inaan quotation kala sii geliyo imka quotation ka marka la geliyo waxa variable kaas oo noqonaya in waxa waa string ama qoraal buu noqonaya laakiin hadaan u baahanahay quotation ku sii jira qaabkeenu qoraya tusaalahan waxa leeyahay string baan qoray mesela quote deedna waxa leeyahay ama xikmad oo kale Soomaaliyeed ka dhigaysa xikmad deedna equal marka tiraahdo waxaan leeyahay marka double quotation marka laba option baa jira marka doonayso shay inaad quote aad ku xidhay ama quotation ama labada dhibcood kale aad labada bahalo kale aad ku xidhay marka doonayso laba option way ku banaan yihiin option koowaad marka aad qorto option koowaad waxa weeyaan single quote baad isticmaalaysaa single quote marka aad isticmaasho mesela waxaan leeyahay xikmad ayaa tiraa marka semicolon baan dambaysiinayaa deedna marka waxaan qorayaa marka ama iska soo yareysaan qoraalka inoo dheeraan xikmad deedna space baan leeyahay hadda marka waxaan sameeyaa laba quotation oo kale qoraya marka single quotation marka aad qorto ee laba quotation aad dhexda u sii geliso labada quotation automatic waxay noqonayaan waxa weeyaan qoraal hadhow tole daabacmi doona marka tusaale ahaan tan waxa leeyahay sabarku waa furaha guusha haddii one line kaas marka uu ka dheeraado waxaad sameyn kartaa keyboardkaaga alt iyo plus haddaad tiraahdo markaa z ama sar haddaad doorato laba line buu markaa qoraalkaaga hadduu yani one line haddaad alt plus ku celiso one line dheer buu noqonaya markaa inaad scrollka jiidi kartaa via scrollka laakiin haddaad doonayso waxa weeyaan kuu soo kaabto alt plus sar haddaad doorato automatic isku hoos keenaya markaa line markastuu gaabka u gaadho marka qaar baan u baahnaa inuu isticmaalo waay xikmad kaas waa qoraal caadi ah deedna waxaan qoray sabarku waa furaha guusha aynu hadda bal soo daabacno waxa leeyahay marka print waxa soo daabacda xikmadda variable-ka loo yaqaan xikmadda waxa ku jira deedna haddaad click si soo tiraahdo run without debugging oo fiirso waxa dhacaya xikmad waa qoraal caadi ah laakiin sabarku waa furaha guusha wuxuu ku sameeyay marka double quotation ayuu ku xulay qoraalka muhiimka ah ee aad doonayso inaad soo bandhigto marka qaabkaasi waa qaab koobaad oo loo ignore garaynayo in labadan quotation programming-kaagu uu fahmo inay yihiin laba la doonayo inay qoraalkaaga raacaan qaabkaasi waa inaad ugu horreyn single quote aad isticmaashaa ugu dambeyn waxa weyn dhexda inta code-kana aad markaa ku qortaa double quotation aad gelisaa qaabka labaad kale waa isweydaanin karaysaa single quote hadaan ku bilaabo tusaalaanka waxa la double quote baan ka dhigay kiisi u dambeeyna waxa la markaa double quote baan ka dhigay labada markaa laba quote ma wada qaadanayo waxa laga markaa error baa dhacaya markaa kan kale waa inaan ka dhigaa single quote kiisa ku xigana markaa waa inaan rahaa single quotation deedna haddaan imkaan aan idhaahdo run without debugging xigmadu imika hal single quote oo kaliya ku xidhan markaa qaabkaasi waa qaabka koobaad ee adigu yani aad ugu xidhi karayso qaabka labaad kale waxa weeyaan adigoo same isticmaalaya maxaa loo yaqaanaayay
waxaan leeyahay tusaale ahaan ugu horreyn waan iska soo wada masaxayaa si aan iskula garanno labada quotation baan ku doonayaa sidoodaasaan ugu daynayaa waxaan markaa leeyahay stringku qoraalada waxaad ku samaynaysa wax loo yaqaano markaa inuu ignore gareeyo markaa shay markaa doonaysa inuu ignore gareeyo waxaad u samaynaysa waxa loo yaqaano characterka markaa aad u baahantahay inuu ignore gareeyo waxaan leeyahay markaa slash deedna slashkaas wuxuu u fahmaya markaa qoraal caadi u fahmayaa laakiin slashkaas markaa double quotation raaciso haddana xagga dambaan tegayaa waxaa leeyahay markaa slash double quotation taa macnaheedu waxa weeyaan labada quotation slashkan wuxuu ignore garaynayaa wuxuu fahansiinayaa inaanay ahayn waxa weeyaan quotation isku dhex jirjiray inaanu ahayn marka haddaad click siiso oo tiraado run without debugging qaabka labaad ee loo ignore garanaya adigoo laba quotation midna furay midna xidhay laba quotation oo kale haddaad doonaysaa dhexdaad kuu qorto waa inaad ku samayso wax loo yaqaano ignoring oo noqonaya waxa weeyaan lineka slashka waa inaad koraysaa marka qaabkaas ayaa loo ignore garayn karayaa optionka labadan double quotation kusii hoos jiro double quotation adigoo isticmaalaya marka slashka markaa faa'iidooyin badan oo kale uu leeyahay marka qaar linekaas wuxuu ignore garaynayaa meelaha qaar tusaale imika haddaan u baahanahay string baan qoray matalan waxaan doonayaa multi line haddaan doonay markaa inaan hoos dhigo deedna waxaan equal imika waxaan qorayaa tusaalaha waxaan leeyahay qoraal aad u dheer marka qoraal aad u dheer markaan qoro matalan waxaan doonayaa slash baan idhi u fiirso slash deedna n waxay taagtay markaa waa new line ii samee marka waxaan qoraal aad u dheer ayaan qorayaa line cusub marka qoraalka doonta line cusub haddaan doonin inaan haddana aan waxa weeyaan line cusub kale ka dhigo slash n baan deedna ka dhigayaa ugu dambeyn marka waxaan leeyahay quotation ii soo samee aniga markaa iyadana waxaa leeyahay markaa waxbay soo daabacdaa multi linekay soo daabac deedna click haddaad siiso run without debugging aad tiraahdo new line qoraal aad u dheer markaa slash nt meeshii aan dhigay new line cusub ka dhigay ayaan qorayaa haddana nt meeshii aan dhigay line cusub ka dhigay marka means linekan ama slashkaasi mararka qaar wuxuu kuu ogolaanayaa ama koodhkaaga uu fahansiinaya marka new line aad samaysay ama maxaa loo yaqaanaaye inaad samaysay waxa weeyaan ignoring oo quotationka aad ignore garaysay mararka qaar haddaad u baahanta inaad tab qorto matalan kelmadda kan t baan halkaa ku bedelayaa deedna haddaad tahdo click run without debugging marka wuxuu samaynayaa tab space buu banaynaya marka characterka slashku aad buu muhiim u yahay khaasatan marka quotationska oo kale aad qoriso new line aad qoriso marka qaabkaasi waa qaabka loo ignore garaynayo single line iyo double line laiskugu dhex qorayo waayo haddaba nooc saddexaad waxaa jira markaa stringa markii la qoraya ah oo isagana waxa weeyaan loo qoro halkan waxaan waxa weeyaan waa single quote markaad samaynayso waad qoraysaa double quote-na waad furi karaysaa laakiin waxaa jira marka qaar markaad doonayso saddex waxa weeyaan waxaa kaloo isagana jira waxa weeyaan nooc kale oo marka weliba qoraalada dhaadheer la qorayo adigoon slash aan isticmaalin slash n oo kale aan isticmaalin loo qoro markaa tusaale waxaa leeyahay markaa waxaa loo yaqaanaa string ama waxaa leeyahay multi line oo kale markaad qorayso waxaa leeyahay multi line way multi line hadda markaad doonayso inaad qorto string baad qortay iminka sida caadiga waxaan leeyahay multi line equal matalan qoraal caadiya ayaan doonayaa dhayar oo kale inaan qoro marka qoraalkaasi waxaan qorayaa markaa single quotation saddex jeer 1 2 3 waxaana ku soo xidhaya markaa meeshii aan doonayo 1 2 3 saddexdii baan ku soo xidhaya deedna semicolon baan dhigay taa macnaheedu waxa weeyaan weliba aan soo yaro durkeysaan arkano saddexdan waa bartay ka furmayeen saddexdan waa bartay ku xidhmayeen dhaart luuqada loo yaqaano wax allaali wixii aad bartaa ku dhex qorto sidooda ayuu soo qaaday marka multilamka qoraalo dhaadheer aad qoriso ama gabay ama paragraphy dhaadheer oo kale sidooda ayaad u soo qorsaa tusaale ahaan waxaan leeyahay waxaan baranayaa deedna inter baan siiyey luuqadda loo yaqaano dart language ee ay leedahay google way waxaad arkaysaa markaa coma haddaan inter siiyo si aan u barto flutter mobile app marka qaabkan saddexaad waa qaabka saddexaad stringa loo qoro laymiska fara badan markaad qorayso wax allaali wixii aad qorto tusaale ahaan haddaan iminka appkan space aan siiyo sidiisa ayuu markaa readingka usoo samaynayaa aan eego markaa ugu dambe waxaa leeyahay soo daabac waxaa leeyahay printing waxaa soo daabacdaa multiline variableka ay ku qoran tahay deedna click baan siiyey run without debugging baan deedna leeyahay u fiirso waxaan baranayaa luuqadda loo yaqaano dart spacekan xitaa hore aan halkan kasoo baxay haddaan kan tab siiyo oon tab kala sii siiyo deedna aad click siiso run without debugging aad tiraahdo automatic markaa tabkaaga uu baxayaa linekii cusbaa siisuu baxayaa tab kastoo samaysa markaa siisuu soo baxaya marka saddexda noocba inaad isticmaasho waxa weeyaan waa single quote ama double quote ama triple quote waxa weeyaan oo single inta option waxa waa qaabka textiga marka la qorayo loo qoro ee isticmaalayso waxa weeyaan string
waayahay waxaan hadda eegi doonaa string waan fahanay qaabkaas waa qaabka loo qorayo waxaan eegi doonaa hadda marka aad doonayso jumlado inaad isku xidho ama laba string oo kala duwan isku xidho wadada loo maray oo loo yaqaano concatenationka waa basicga marka laba option baa jira mid waxa weeyaan waa mid kula tarnayso luqadda loo yaqaano dart midna waxa weeyaan waa basicga marka basicga luqadaha kalena ay kala mid tahay si aynu fahanno aynu ku bilaabi doonaa tusaale ahaan waxa la string qof marka qoraya first name dadna waxaan yiri مثلا محمد deedna waxaan markaa semicolon u dambeysay qoraalkii labaadan qoray deedna waxaan markaa last name waxa leeyay Abdullah waayahay mise taxawul ku sidari kartaa tusaale ahaan waxaan leeyahay string waxaan leeyahay kan markaa waxaan leeyahay middle name ama second name dan waxaan leeyahay last name waxaan leeyahay Osman way saddexda line hadaba saan iskugu soo qoro waxaan qorayaa on iskugu soo xidho waxaan isticmaalaa wax loo yaqaan mesela string kala hortaan sameesto loo yaqaan full name marka waxaan doonayaa saddexdooda inaan iskugu keeno marka waxaan leeyahay first name plus second name plus last name saddexdoodii waxa weeyaan waan isku soo wada daray kadib waxaan leeyahay marka waxa soo daabacda print full name kay soo daabac deedna waxaan leeyahay marka semicolon soo dambeysay deedna aad click sii soo dirana run without debugging way marka Maxamed Cabdullaahi Cusmaan hal line buu wuxuu isku wada xiray laakiin wax space ah haba yaraatay uma soo sameyn hadda doonayso marka waxa weeyaan plus waxa loo yaqaanaa kelmadda plus marka laba qoraal laba string yaani marka joogto numberkana wax kale loo yaqaanayo plus caadi noqonaysa ama isku geyn bay noqonaysaa laakiin marka laba qoraal aad plus u qorto wuxuu noqonayaa wax loo yaqaano waa concatenation ama isku xidh bay noqonaysaa waayahay plus kan hadii aan doonayo markaan Maxamed Cabdullaahi wax space haba yaraato ma dhaxayo hadii doonayo space u dhaxaysiyo symbol plus kan markaan daba imaado waxaan leeyahay double quotation ma furaya deedna space ma siinaya hadana kii kale aan tagaya last name ka dabadiisa aan tagaya double quotation ma furaya hadana plus marka space deedna plus kii kale ku sii xid kana marka waan isku xulaaba muhiima kana waan raahdaa isagana plus igu soo sameey hadda markaan eego kliga hada siiso taado run without debugging Maxamed Cabdullaahi Cusmaan waxaan sameeyay marka ugu horeysa waa first name qoraalku ku jiray value ku jiray waxaad ku dartaabaan inay space banaan hadana waxaad ku sii dartaabaan inay second name hadana waxaad ku sii dartaa space banaan ugu dambeyn last name ku sii dar laakiin halka wuxuu kugu sheegaya waa warning kaasoo kugu digayo ku leeyahay waxa jira hab kale oo ka fiican marka interpolation wax loo yaqaan baa jira marka ka weyn arki doonaa laakiin ugu horeyn qaabkaas waxa weeye waa qaabka basic mesela hadii aad printer kala sameynayso waxaan kaloon sameyn karayaa tusaale ahaan doonay first name waxa la printerka dhexdiisa waa isku geyn karaysaa waxa la mesela first name ka waxa soo daabacda first name ka ama qoraal baan sameyn karayaa مثلا waxa la double quotation magacaygu waa markaad qorto waa inta dibadda uga baxo space baan siinaya inta dibadda uga baxo plus waa inaan raahdaa kadib waxaan ku qorayaa waxa weyn first name kan ku daba xilaya marka waxaan sameeyay string caadiyan markaan qoray kadib plus waxaan u geeyay string variable kii hayay qaabkaasna waa qaab kale oo marka printerka isticmaalaysa qori karayso dadna aran tiraahdo magacaygu waa space buu siiyay dadna Maxamed variable ka dhaatay ku jirtay ayuu siiyay soo qaatay marka plus kaasi waxa loo yaqaan waa concatenation waxaan isku geenayaa laba string ayuu isku soo daraya waxa kale oo daba isaga jira wada kale oo ka fudud oo inta badan waxa weeyaan kula talinayo loo yaqaan string interpolation muxuu noqonayaa halkan imka plus ka isticmaalino plus ka marka waan ka tagaya tusaale ahaan waxaan leeyahay ugu horeyn waan iska soo wada masaxayaa waxaan soo qorayaa marka string caadiya mesela waxaan leeyahay magacaygu waxa weeyaan Jumcaale deedna waxaan leeyahay markaa integer age-kiisana waxaan leeyahay matalan waa 45 kadib waxaan doonayaa markaa inaan interpolation aan ku sameeyo waxa loo yaqaano aan isku soo xidho saan isku soo xidho matalan waxaan leeyahay printing waxay soo daabacdaa double quotation string caadi markaan qorayo waxaan leeyahay magacaygu waa space baan deedna aan sameeyay marka intaan isticmaalaa plus aan ku soo celcelinaa tusaale waxaan imika sidii hore manualka ahayd ama loo yaqaan wax way concatenationku waa inaan raahdaa plus deedna space deedna name-kii aan qoraa deedna haddana waa space plus baan idhi haddana waxaan doonayaa markaa da'dii qoro string baa haddana qorayaa da ama waxa leeyahay dayduna waa sorry haddaan qalday waa haddana dibaddaan uga baxay waxaan idhi plus haddana waxaan ku xidhayaa markaa age-kii deedna ugu dambeyn waxaan markaa kusoo gabagabaynaysa laakiin age-ka laftiisu waxa weeye maadaama string ahayn ma aqbalayo marka waa inaan haddana string isagii u bedelaa deedna waxa la dot to string waa inaan isagii aan u bedelaa maadaama uu number uu yahay haddii markaa qaabkaas oo wadadii hore concatenation markaa isticmaalaysay magacaygu waa Jimcaale da'dii lafteedii space u baahan halka waa space ka sameeyaa deedna waxa la run without debugging
deedna da'dayduna waa 45 laakiin qaabkaas markaad u tagto waa uu kaala talinayaa maaha markaa qaab standard buu ku leeyahay wadada labaad markaa qaabkaas waxa weeyaan aynu ku samayno comments waxa la waa concatenation string baa loo yaqaanaa qaabka kale ee markaa ka professionalsan waa waxa loo yaqaano aan idhaahdo string interpolation marka qaabkan waa ka fududaanaysa isla inta aynu qornay plus aan ku celceliyay deedna dib aynu qoraynaa deedna waxaan leeyahay markaa symbol print markaad qorto hadda waxaan leeyahay magacaygu waa markaan qoro imika plus uma baahni waxaan isticmaalayaa calaamadda loo yaqaano dollar sign markaad qorto calaamadda wuxuu aqoonsanaanayaa waxa loo yaqaano Visual Studio Code inaad variable aad ku xidhayso qoraalkaagi waana habka loo yaqaano interpolation marka dadna plus tiraado magacaygu waa waxa la name-kii ku xidh space baan dadna sameeynayaa dayduna waa calaamadii dadna waxa la markaa h dadna waxa la symbol waxaan ku soo gabagabeynayaa semicolon u fiirso labadan markan waxaan qoray magacaygu waa plus baan hadana qoray name-kii baan ku daray hadana plus baan qoray laakiin marka waxa weeyaan si caadi ah magacaygu waa dollar sign kan error ma muujinayo warning error maaha yani digniin ma muujinayo halka bluegaasi ka kale ku muujinayo isagana hadda tiraahdo isku qaaban baa soo baxaya ran hadda tiraahdo magacaygu waa Jimcaale daadeeduna waa 45 waa same laakiin qaabkan dambe waxa loo yaqaan waa string interpolation waxaana la isticmaalaya calaamadan ba loo yaqaanaa dollar sign ayaa waxa weeyaan ku saamaxaya haddaba haddaan kan dul timaado oo deedna aad click siiso oo calaamadda ku dhufatay isaga ku caawinaya replace waxa uu bedeshaa ku leeyahay interpolation uu bedeshaa deedna click siiso qaabkan inuu qornay buu soo qoraya magacaygu waa name sideenii buu soo qoray marka qaabkaasna waxa loo yaqaanaa concatenation qaabkan hoosena waxa loo yaqaanaa interpolation su'aal labaad bay isweydiinaysaa haddaan calaamadda waxa loo yaqaanaa marka waata ku sameynaysa dollar sign waata ku ogolaanaysa ama interpolationka ku sameynaysa halkii plus aad ka isticmaalayd laakiin haddaan doonayo inaan dollar muujiyo مثلا halkan waxaan ku soo qoraya wax loo yaqaan double مثلا waxaan leeyahay money deedna waxaan leeyahay qofkaas مثلا wuxuu haystaa $150 buu haystaa haddaan doonayo inaan da'deedii markaan sheegay inaan lacagta aan ku sii dabadana maxaan sameynaya waxaan eegnaa hadaba aan ku sii dabadana age-ka qaabkan hore markaan space aan idhaahdo مثلا waxaan leeyahay okay waxaan haystaa lacag dhan lacagna markaa maadaama haddaan dollar sign-kii aan qoro deedna lacagtii aan sheegay sidiisa waxaan u qori karaya okay variable-kiisa aan soo qaadanaya waxaa leeyahay tusaale ahaan money lacagtii waan soo qaatay laakiin haddaan rangareeyo dinaa run without debugging imika 150.0 buu qoraya laakiin haddaan lacag ahaan doonayo inaan calaamadii dollarkaan raaciyo maxaan u baxnaanaya saynu markaa inugu daba darno haddaba calaamadda imika waxa weeyaan 150 keliya qorayaa saynu markaa dollarka inuu muujino ugu horreyn waxaan ka horreysiinayaa slash calaamadii haddana dollar sign-ka marka labadan dollar sign way kala duwanaanayaa ka hore waa qoraal caadiya ayuu ka dhigayaa because waxa weeyaan calaamadda waxay muujinaysaa inuu ignore gareeyo oo uu u qaato waxa weeyaan calaamad caadiya oo tii dollarka ah ka ku xigaana wuxuu muujinaya waxa weeyaan inay variable-ka loo yaqaano money soo akhristo marka haddaan run without debugging aan idhaahdo hadda $150 calaamadii dollar sign-ku waa inoo raacay sababta waxa weeyaan weyniga ka horreysiinay marka qaabkaas ayaa waxa weeyaan markaa isagana loo sameynayaa waxaan aragnay waxa loo yaqaano concatenation string iyo string interpolation waxaanu raacin doonaa string interpolationka mararka qaar haddii aad doonayso inaad matalan xisaabaad isku geyso maxaa loo yaqaanaayey waxaa muhiima markaa tusaale calculationka marka uu dhacayo kale matalan waxaan soo qoraya markaa qoraalkayga intaan hore aan iska soo wada masaxo waaye matalan kan lacagtayda waxaan doonaya markaa inaynu eegno marka calculationka kale tusaale ahaan samaynayso waxaa leeyahay markaa waxaan soo daabacaya printing waxaan leeyahay magacaygu waa deedna dollar sign deedna waxaa leeyahay markaa namekii baan soo qaatay space hadda imika waxaan doonayaa lacagta loo yaqaano money $150 qofkaasi uu haysto inaan matalan lacag kale aan u geeyo matalan 30 ama 40 waxaan doonayaa $50 kale aan ku daro deedna haddaan imika idhaahdo okay waxaan haystaa tusaale ahaan lacagtayda qoraal caadi aan qoray waxaan leeyahay money dollar sign kan soo qaatay deedna money variable ka soo qaatay haddaan doonayo markaa lacagta inaan u geeyo matalan lacag kale matalan plus baan idhi markaa $50 baan doonaya inaan u geeyo qaabkaas waxa weeyaan qaab shaqaynaya maaha tusaale ahaan click siiso run without debugging inaad tiraahdo wuxuu kuu soo dhigaya magacaygu waa Jimcaale lacagtaydu waa 150 plus 50 soo qomka 50 qoraal caadiya ayuu haystaa laakiin haddaan doonayo in 150 plus 50 in lagu daro oo aan doonayo calculation noocaas inaan sameeyo waxaan u baahnaanayaa inaan markaa waxa weeyaan aan labadan bracket ku soo xidho markaa ugu horreyn aan soo dhaweeyo waayo markaa waxaan sameynayaa ugu horreyn 150 masaxayaa waxaan u baxaa markaa qasaba qaybta loo yaqaano moneyda inaad ku xidho markaa bracketkaas
bracket kaas markaa wuxuu sheegayaa waxa weeyaan in method ama calculation markaa bartan uu ka dhici doono markaa plus haddaan idhahdo imika 50 deedna imika waxa weeyaan bracket kaas wuxuu muujinayaa bartan waxa weeye markaa inuu labadan shay la isku geynayo aanu qoraal lahayn deedna haddaad click siiso run without debug inaad tiraahdo magacaygu waa Jimcaale lacagteedana waa $200 imika isku geyn rasmiya ayay noqotay tusaale kale haddaad soo qaato qoraalkan soo kaabiyo matalan waxaa leeyahay printing waxaa soo daabacdaa da ama waxaa leeyahay age markaa age-kayga waxaan doonayaa ugu horreyn waa kaga yaala markaa age-kayga waan soo qaatay laakiin hadda doonaya age-kayga inaan ku daro 20 inaan 2 ku daro plus 2 ma odhan karayo waxaa muhiima inaan markaa bracket aan ku wada xidho si markaa isku geyntu ay u dhici karayso markaa haddaad deedna aad tiraahdo print without debugging markaa age plus 2 waxa soo baxaya markaa age-ka marka hore ahaa 45 plus labadii lagu daray 47 markaa markaad isticmaalayso string interpolationska pluskaas haddii يعني قاب function oo kale wixii halkan ka dhaxdhacay hadii uu baran doona advanced ee waan markaa bracket kan aad ku xidhaa si uu markaa u garan karayo wax loo yaqaan inay meesha isku geyn ay ka dhacayso way qoraalkan iska soo masaxno ugu dambeyn xigi doona markaa properties-ka wax loo yaqaan string waxa uu leeyahay wax loo yaqaan properties maxay yihiin basically markaa ka baran doona ugu horeyn qoraal baan soo qoranayaa qoraalkii waxa la markaa string markaa aad bay u badan yihiin documentation waa si baari doonto dad aad ku qorto waxa weeyaan properties laakiin inta ugu muhiimsan markaa maanta ka baran doona casharada kale advance kana qaybaha kale raacin doona way markaa tusaalan qoraal baan qortay text qoraalka markaan qoro space baan sameeynaya qoraal fara badan baan sameeynaya horta intaan qoraalka fara badan sameynin ama iraahdo waxa leeyahay Dart programming language way qoraalkaas ayaan sameystay waxaan doonayaa markaa wax loo yaqaano inaan markaa properties-ka noocyada kala duwan ee uu leeyahay inaan ogaado ugu horeyn waxaan ku bilaabayaa haddaan idhaahdo printing waxaad isoo daabacdaa qoraalka loo yaqaano textiga variable-kan properties waxaa ka mid ah dot haddaad qorto waxaad markaa sheegaysaa tusaale ahaan length waa properties-ka uu leeyahay length wuxuu kuu sheegayaa qoraalka loo yaqaano textiga imisa xaraf ayuu ka kooban yahay haddaad inaad click siiso run without debug inaad tiraahdo 25 xaraf ka kooban markaa 1 2 3 u tiriso 25 buu noqonaya marka wax loo yaqaanaa waa dot length waa properties-ka koobaad ee aynu baranayno properties-ka labaad aynu barano wax loo yaqaanaa print haddaad qorto matalan text waxaan leeyahay dot waxaan doonayaa to uppercase inaan tusaale ahaan capitalize haddaan doonayo to capitalize tusaale ahaan aan idhaahdo to uppercase haddaan doonayo inaan dhammaantii aan wada qoro ugu horreynta markaa intaanan qorin original filekiisana aan sidiisa usoo qaato waxaa leeyahay print textiga caadiga sidiisa igu soo daaba marka mar waxaan ku sameeyey to uppercase marna waa originalkiisii marna waa lengthkiisii marka kuwa dhan waxa weeye properties haddaad tiraahdo run without debugging kan waa qoraalku sida originalka u qornaa capital maaha laakiin kii labaad waxaan ku dhigay markaa to uppercase inuu qofku capital uu ka dhigo aynu markaasi aynu ku qasabnay haddii markaa qoraalka laftiisu marka hore uu yahay uppercase buu markiisa hore u yahay tusaale ahaan waxaan leeyahay string name magacayga tusaale ahaan waxaan ku qoray sid academy wada capital baan ka dhigay haddii aan doonayo saas lamida inaan u yeedho waxaan leeyahay markaa print waxaad isoo daabacdaa matalan name dot to lower case isaga markaa lower case buu noqonayaa waa uppercase-ka opposite-kiisa run without debugging haddaad tiraahdo qoraalkii markaa wada small ayuu ka dhigaya markaa uppercase to lower case optionaas dhan waxa weeyaan waa optionada ama properties-ka uu yeelanayo haddii markaa sii dul istaagto faahfaahinta to uppercase qaabka u shaqeynayso ayuu markaa kuu soo dhigaya waayay properties-ka kale inuu raacino waxa weeyaan waxa loo yaqaana waa trim wuxuu noqonayaa tusaale ahaan qoraalkan iska soo wada masaxo ama intan kan dheeraadaan iska soo masaxo waayo qoraalkayga haddii space baa ku jira 1 2 3 space baan sameeyay xaggii dambe waxa kaga sameeyay 1 2 3 4 space baan kaga sameeyay matalan programmingka 1 2 3 space aan ku sameynaya saa markuu yahay haddaan sidiisa usoo daabaco inaad run without debugging waxaad arkaysaa markaa space buu xaggan hore kaga daray bartanna space buu kaga daray xaggan dambena waxa weeye space baa kaga jira waxaad arkaysaa markaa spacekii waad arkaysaa markaan highlight gareeyo haddii aan doonayo dhammaan spacekaas inaan waxa weeyaan aan ka wada saaro waxaan qorayaa markaa waxaan leeyay print waxaa soo daabacdaa text dot trim deedna waa trim garanaya waayo mararka badan ba marka passwordka qofku uu qorayo haddii space dheeraad oo ku darsado aad u baahnaanaysa marka haddaad tiraahdo run without debugging kan waxa weeyaan waa originalkii space baa ku jira laakiin kan waxa weeyaan space xagga hore kagama jiro xagga dambe toona kagama jiro laakiin kii dhexdeed ka geliso kaliya ta ayaa markaa ku jiraya waayo ka dhexda waxa weeyaan programming ku siisa ayuu soo qaadanaya haddii markaa ka dhexdan ka saaro inaan run without debugging kan space baa ku jira
kan kale space baa ku jira waayo kan waa kii uppercase-ka xagga dambana space-ya kaga jira laakiin kii aanu trimka ku samaynay space xagga hore kama raacayo spacena xagga dambe kama raacayo marka text trimka waxaa loo yaqaanaa marka waa wixii space xagga hore iyo xagga dambe ka gala ayuu markaasi ka saaraya waayay waxaan kaloo eegaynaa tusaale hadda doonaysa aad check garayso qoraalkaaga matalan waxaan leeyahay print inta badan baa sweedhada iyo markaad waxa weeyaan aad doonaysaa shay aad criteria aad badhaba la isticmaalaa textiga waxaan leeyahay dot miyuu contain ka kooban yahay qoraalka textiga ee halkaa igu jiraa miyuu ku jiraa kelmadda loo yaqaano matalan dart kelmaddaasaan weydiinayaa qoraalkaasi miyuu ka kooban yahay haddaan deedna aad tirahdo click run haddii kelmaddaasi ku jirto true buu kuu soo qorayaa waa true laakiin haddaan matalan ku jiro dartis s baan matalan raaciyey deedna waxaan idhi aan rangareeyo wuxuu soo qorayaa falas waayo kelmadda loo yaqaano s markay la socoto waxa weeyaan iguma jiro marka propertieska loo yaqaano dot contains wuxuu jeegaraynayaa shaygaasi miya uu ku jira ayuu jeegaraynayaa marka qaar waad bedeli karaysaa matalan waxaan leeyahay print waxaa soo daabacdaa textiga dot replace waxaad ku bedeshaa marka replace all ayaan deedna leeyahay kelmadda marka aad bedelaysaad markaa qoraysa kelmadda loo yaqaano waxa leeyahay dart waxaad ku bedeshaa matalan flutter kelmadda loo yaqaano dart waxaad ku bedeshaa flutter deedna haddaad tiraahdo run markuu soo daabacayo waxaan idhi flutter programming language laakiin weli qoraalkaygu waxa weeyaan spacekii xagga hore ka raacayay iyo kii xagga dambe ka raacayay waa ku jiraa sababta maan trim garay marka haddaad bracketka markaad dibadda uga soo baxdo dot trim baad deednaad sii odhan karaysaa marka haddaad sii trim garayso run without debug inaad tiraahdo flutterkii spacekii o dhan waa u ka saarayaa flutter programming language dadna sidiisa ayuu kugu soo qoraya marka propertieskani aad bay muhiim u yihiin marka aad doonayso inaad valuega stringa aad doonayso inaad check garayso ama markaad qayb ka mid aad baarayso ama uppercase ka dhigayso ama waxweeyaan qaybaha qaar aad ka saarayso marka qaar waxaa wax loo yaqaano substrings qaybaan u kala qaybinaya tusaale ahaan waxaa leeyahay print waxaa soo daabacdaa text dot substring igu kala qayb baan leeyahay marka qayb baan doonaya inaan ka tago matalan kelmadda weliba halkan aan soo koobo magaca intaa hore seedaan ugu daynaynaa waxaan leeyahay markaa string kale cusub aan samaynayaa name deedna waxaan leeyahay markaa sit academy waayahay kelmadda loo yaqaano academy haddaan doonaya markaa inaan meesha ka soo saaro marka waxaan leeyahay deedna waxaan leeyahay markaa run without debugging maxaan sameeyey academy weliba halkanna markaa mid baan ka tegey markaa ten baan leeyahay minutes waxa weeyaan 1 iyo 2 iyo 3 iskaga tag oo ignore garee waxaad iga bilowdaa qoraalkaad siinayso kow markaa waxa noqonaya markaa waa 4 5 6 7 8 9 10 ilaa 10kaysi kadib haddaad markaa intaad samayso substring waxa loo yaqaan markaa part of it markaad u baahantay qoraalkaagaas inaad soo qaatay academy keliya ayaan markaa soo qaatay marka waxaad arkaysaa kelmaddii oo keliya taa academy oo keliya ayuu ku siinaya marka kaana waxa loo yaqaanaa substring marka propertiesku aad bay u badan yihiin waxaan ka soo xusnaa markaa imika waa languageka uppercase trim contains replace all trim substrings marka waa sii baari karaysaa propertieska faraha badan leh ee ay leedahay luuqadda dart khaasatan qaybtii loo yaqaano string marka marar badan bay markaa muhiim tahay oo marka qofku tusaale ahaan uu magaciisa waxaad ku tiri meel baad tiri magac geli space buu markaa baneeyey spaceka marka hore markaa waa inaad ka saartaa oo trim garaysaa kadib markaa waxa weeyaan aad qoraalkiisa keliya la soo hadhaa marka casharkeena dambe advanced-keena ku baran doonaa casharkeena waxa weeyaan saddexaad ee maanta aynu kaga warramaynay majwalkeena labaad intaas kusoo gabagabaynaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu